عدة عدي بني واعيو حربات هيبات سليد هاي مركز عين كاو فكريسو لكن رنتي حرمته وحارد حروة هاي أديكو أو مسكحدادو أي عافمات قبطو وحي آمين سنيد كلا قمنا إلهي كرالي ذاها كما قوان قادنيسد waxaad ku go'aan qaadanaysaa maxaa lagu oran marka waxaad doon u tahay qalad dadkan marka la yiraahdo gobonimada sheeganaya muxuu ahaa inay iyagu yihiin dhalad inay yihiin oo reer hebel baan la yiraahdaa leh ayaa u baahan in la xoreeyo runtii kuwa in la xoreeyo u baahan waa iyaga oo laga xoreeyo fikradan qaldan ee la iska dhaadhiciyay ee xididka dheer leh say ku imanaysaa lagu xoreyn kara wala noo barin qoro ku xuma xoreyn karo khudbadana kuma xoreyn karo sheekooyina kuma xoreyn karo iyada oo loo baahan yahay ay tahay in laga aamusin marka sidaa leeyahay laga aamuso ma macnaheedu waxa weeye mujtamacani inuu gidigii isbedelo materially inuu isbedelo spiritually inuu isbedelo maxay ku iman kartaa waxay ku iman kartaa isaga oo dadku dhaqaalahan hore u mara waxbarasho hore u mara isdhexgalka iyo isu tagga iyo isu gudubku hore u maro ahaanshaha kan aan had iyo jeer dareemayo inaan reer hebel baan ahay reer hebel baan u baahanahay in meesha ka baxdo inaan aamino muwaadin baan dalka ka ahay oo qawaaniinta dalka iyo dawladda lafteeda ayaa siinaysa iyo ammaan gelinaysa oo ammaankaygu ku xidhan yahay markaan taa aamino dadkuna isu gudbo ee ka hargeysa jooga ee reer hebel ku sheeganaya uu kusmaayo dego adeegada umadu marka dhaqaaluhu u xoogaysto way isu gudubtaa waa waqti dheer bay qaadanaysaa in umadu ay meel walba is aragto iyadoo wada joogta oo qabiil meel joogo ku urursan aanu jirin oo qabiil waliba iswaado adeegada la isku wada milmo adeegada qabiil waliba markuu iswaado la isku wada milmeel la isku wada dhex galo markaasaa waxa soo baxaya dhaqan cusub iyo fikir cusub iyo wacyi cusub soo baxaysa qiyam cusub oo lagu wada dhaqmo halka ka dhalanaysa taas baa uu ku imaaya isbedelku wacyigeen iyo maskaxdeenu ba isku bedelaysa intay qaadanaysaa Allah ya'lam waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin waxay u baahan tahay hoggaan wacyi oo dadka horumarka aynkaas oo kala ku hogaamiya aragtidaas